السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga seetiin caafimaadkiina ma fiican tihiin ani waa idin fiicana maasha Allah aada in kugu fiicana boqol waaye walaalahayga horta runtii waa idin mahadcelinayaa sida quruxda badan ay igula socotiin waa idinkaga mahadcelinayaa commentidiina quruxda badan oo dhiirigelinta waan arkaa markasta maasha Allah sida igu soo qortiin commentida quruxda badan dhiirigelinta Sacdiya saas samee Sacdiya hor u soco maasha Allah keep going wallahi waan ku farxaa runtii aada ugu farxaa maasha Allah waa mahadsantihiin walaalahayga commentidiina markas waan aqriyaa marka xagga kasii wada idin leeyahay tan kale waxaan idinka codsanayaa barnaamijka inay ii sheegaraysiin meelaha bulshada ku badanta igu sheegaraysiin la wadaagtiin walaalihiina saaxiibadiin la wadaagtiin maxaa yeele wax kastoo dhaca waa in lesson laga bartaa sooma marka walaalahayga waa idin mahadcelinaa runtii walaalaha imaan doona waxaan leeyahay soo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada iyo qalbi idin jecel intaba kusoo dhawaada idin leeyahay waan arkay runtii maalmahan dambe waxaan arkay walaalo cusub oo igu soo darsamaya arkay ayagana waa u mahadcelinaya maasha Allah dhammaantiin Allah idin barakeeyo Allah idin sharfa idin leeyahay maanta waxaan usoo galay barnaamij aad u muhiim ah runtii aan aad ugu naxay ayaan usoo galay inaan ka hadla haddii lala aamuso maxaa yeelay barnaamij wax kastoo la arko in la sheegaraya fiican oo dadka bulshada lala wadaaga macnaha hadda aan la aamuso dadka boogaan karaan mana dad kale waxaa laga yaabaa oo dhibkaas qabsan lahay inay ka waantoobaan laga yaabaa marka saas darteed ayaan markastaba aan bulshadeen inaan u wacyigeliyo aan wanaaga fara ayaan istusay marka walaalahayga arrin ayaa Nairobi ka dhacday maalmo 3 bir ama 4 bir laga joogo hadda saas u sii dheereen gabar ayaa 3 cunug haysatay oo hal xanuunsan oo ku jiro 3 cunug inay gubto ayay rabtay ayadan isgubto ilmaheena gubto ayay rabtay subxaanallah waa arrin lala yaabo waaye waa mar dhow hadda ramadaanka dhexdiisa waaye maalmo ka hor 4 bir ka hor meelahaasaan filaya wallahi waan ka naxay runtii aan Sacdi waan ka naxay waan yaa waxaan ku hadlaan gar waaye gabadhii marka dadka dhan waa isku soo baxay gabadhii horta waxay samaysay markii afurkii oo xilliga guryaha lagu xaroonayo ay gaaska ma arkin oo birta ka samaysan ayay shiday gaaska markay shiday gaaskii bul markuu dhahay waxyaalo kaloo ma aragta dhar iyo wax inay xaashi iyo wax inay kusii holac ay kusii badisa ayay marka kusii dhaga dhaweyso ilmihii marka ilmo yar roona ku jireen saas uma weyn laakiin wax oo hadii markaas xanuunka iyo dabka dareemaya ayaa ku jireen ilmihii markaan qayladooda dadka daris kusoo carareen markay kusoo carareen haddii la imaaday waxaa lala kulmay gabadhii oo ilmihiina gubaysa inay iyada isgubta ayadan inay isgubta ilmahana gubta rabta ilmihii 3 cunug iyada inay hul iska siisay isgubaanay rabta saas nafta iskaga taqluuqaan marka waxaa waaye waa lagu soo gaaray dariska lagu soo gaaray oo hinta ilmaha lagu soo gaaray saas markii la arkay dabkii la arkay dadku way yaabeen holici iyo wixii markii la ogaaday in gabadhan dadka ilmahana gubaysa ayadan isgubaysa ayaa loogu yeeray booliista ayaa kaxaysay ilmihiina dariska ayaa saas lagu kala badbaadiyay ilmihiina wax yar dhaawac soo gaaray oo saas weyn oo ma arkin oo dhaawac oo hadda la dhahayo waa dhaawac culus la dhahayna ma aragta waa soo gaaray dhaawac fududa soo gaaray ilmihii laakiin ayada wax ma gaarin weli iyada waxay rabtay ilmaha ii ka bilowday iyada isku xijisay rabtay marka walaalahayga dhibkaas ayaa horta ka dhacay maalin dhaxdaas markii gabadha la waday oo booliista loo waday kadibna dadka banaanka la isku imaaday dadka dariskeeda ka warramay waxay dhaheen gabadhan dhib badan ay qabtay intaas oo sano waxa way dhib ku jirtay way aad ay u dhiban tahay qof dhiban ay ahayd waa gabar garoob waa 3 cunug haysata ninkan wuxuu ku maqan yahay meelaha South Africa ku maqan way kala tageen marka dabcan haddii qof wax loo soo diray ay ladan tahay oo maanta nolol fiican ay ku nooshay ay tahay kulli misgubteenteedii kalena ilmo maskaxiyan uma fiyoowo dadka waxay dhaheen depression ay qabtaa stress ku furan maxaa qof yoomaha maalmahan boo isla hadlaysay dhibkaana kuma bilaaban wax hadda waa wax soo socda sanooyin waaye tolka iyo qaraabada markii wax loo aruuriyay haddana wax lagu aruuriyo haddana wax lagu aruuriyo mar 2 3 4 5 haddii lagu aruuriyo waxaa waaye adin naftarkaada marka dambe waxaa waaye wax kala madaxaada soo galay marka waxay sadhahdaa laga yaabaa intaasoo marba tolka iyo qaraabada iyo dariska ay wax ku aruuriyeen haddana ma dadka hortagi kartaa oo dhihi kartaa wax ii aruuriye wixiina way istustay markay istustay wax la-aanta haysa iyo hore markay fiirsan ay dhahda dadka haddaa u tagtida wax u sheegatidna qofta maalin kasta wax noo sheeganaysa maxaa camal inay iska dhadhacsisaa laga yaabaa waa isla hadashay gubniinka saasaa keentay waa stress marka gabadha aaday u dhibaneed haddii qof dhiban u ahaan laheen oo ay ladan tahay kulley saan qiyaasayna ay dariskana sheegeen qof ladan hadday tahay ismana gubteen ilmahana uma gubteen mana caafimaad hadday qabto caafimaad daradana waxa keena waxaa waaye qarash la'aanta keentay qarash la'aanta waxay ku sababtay depression
iyo stress ay abuurtay mogtahay qarash la-aanta waxaa ku abuurtay depression iyo stresska iyo depressionki baatusi marka inay ilmahan gubto ayadana isgubto marka ayba noloshaba is dhaafiyaan marka waxaa inkastoo laga soo gaaray ilaahay mahad iskale ilmihiin badbaadiyey iyadana badbaadiyey maxaa yeele haddii fiyowda wax maba halayseen qofkaas ma fiyoobo qof ilmihiisa gubayo maba jirtaba hadduu xanuunsan yahay waa meesheeda qof fiyoobo oo nabad qabo maskaxdiisa joogto ilmihiisana ma gubo ilmadadooda ma gubo qofna wax ma yaalo laakiin meesha waxaan ka garanay inay xanuunsan tahay maskaxiyan weliba loo hayo marka dhibkana si dadka ay sheegayeen wuxuu ka imaaday dhaqaale xaggiisa xagga dhaqaalaha ka imaaday maadaama cunug xanuunsan haysata bixi karin ay shaqayn karin waxaana lagu leeyahay dadka waxay leeyihiin way shaqaysaa oo meel bay ka shaqaysaa oo laakiin shaqo fiican maahano canjeeray meel ka karisaa maqaaxid ah oo part time macnaha 1 saac miya mise 2 saac camal ay ordaysaa canjeeray kasoo dubtaa wayna soo noqotaa 300 miya mise lacag 400 oo gaaraysa lacag Kenya la sii waa $3 ama $4 camal ayaa la siinayaa marka lacagtiina way ku yaraataa laga yaabaa way deeq waysmiya moogi gabadhi marka waxaa qabsaday stresskaasna waa stress xagga dhaqaalaha ka imaan meel kale kama imaanin maxaa yeelay wax badan dadka tolka wax u aruuriyaan qaraabada u aruuriyaan dariska waa loo aruuriyay laakiin wax lagu aruuriyay waxba kuuba tarayaan sooma adiba qiyaas wax lagu aruuriyo dad islaan isku kaa dardare intay ku gaarsiinaa 2 maalin 3 maalin ka badan buu xawaaye waa meel kuba gaarsiinaya marka ilaahay subxaana qaadirka inta dhiban dhibka ka qaada gabadhaas ilaahay subxaana qaadirka waxaan ugu baryaynaa caafimaad tamaam ha siiya ayadii ilmaheeda cunuga xanuunsana ilmahan hataa ku jira ilaahay caafimaad ha siiya adana caafimaad ilaahay ha siiya marka inta xanuunsanaysana ilaahay caafimaad ha siiya gabdhow marka waana waxaan siinaya gabdhaha in yar wiilashana hal waana usoo jeedinaya gabdhahan hal waana marka inuu sii dheeraado videogana ma rabo walaalayaalow gabdhow haddaa xanuunsan tihiin horta marka u horeysa waxaa waaye ilmaha hortolaa dhalay oo tol bay leeyihiin sooma markii ay ma aragtay dhib gaaro adduun isku dhammaado maskaxiyan lagu qabto balaayo dhacdo waalatid waxaa ka fiican oo dhibka intaas u gaarin markii bilow u malaynaysid waa qiyaasi sooma waa qiyaasi waxaad leedahay waxaa xali karta miya haddaa fiiriso wax inaad korin karta ilmaha u malaynaysid dadna ha u sheegin ilmahaada iska korso haddii laakiin aa u malaynaysid inaa waxaan qaadi karin oo xil waa ilaa xilkan intaan kaligaa wadi karin aa u malaynaysid tol buu ka dhashay ninkaani u bandhig oo waxaa dhahdaa dalka oo ninka ka dhashay ha loo bandhigo aniga waa ilmahan koligay ma korin kara haddii aan isku dayo inaan koriyana waxaan qiyaasi in aan waalan doono ama aan macnaha stress aan isku furi doono aan qiyaasay aan ii muuqato markaan fiiriy ee walaalayaalo waxa leela qabta dheh sidaas marka xal ha lagu keena xalkan ayaa keena tolka keena ninka hadduu baxsado hataa toluu leey waaliduu leey qaraabuu leey adeeruu leey awowuu leey tolkiisa loo bandhigaa marka xal bay keenaan hadday masaruuf ku siiyaan oo biil ay ku siiyaan oo ilmihii sidii ma arkino oo ku xalisid oo ma aragti ilmaha saas ku korsatid iyo haddii lacag yar ay ku aruuriyaan ay ku dhahaan intaan ku shaqayso ilmaha saas ku korso iyo hadday ku dhahaan ilmaha anaga noo keeno waalidka dhalaa joogo korinaayo ama hal ada haysa 2 anaga noo keen wax noocaas camal ay ku dhahaan si baa xal baa la keenaaya adiga hala aamusin ilaa ha ka gaarsiina sheekada markay waali gaarto ama stress iyo depression ay gaarto ha gaarsiinin dhibka intuu yar yahay u bandhig tolkiisa u bandhig haddii ama tolkaada u bandhig tolkaadaasi tolkiisa u bandhigaya tolkaa marka isu bandhigaya iyaga laakiin ada horta ha hadalka leeseen beri warka gudbi laakiin ha aamusin haddii aad karaynin waaya haddii karaysa caadi waay haddii aad karaynin oo u malaynaysa inay saan dhacaysa isla hadal iyo waali iyo depression inuu imaana haddaa u malaynaysid waayo muddo aan ka hadlayo laakiin naagtii adag oo ilaahay subxaana qaadir kartideeda u siiyey oo dadna inay u baahato oo rabin oo hadalkeeda wixii dad u geysan rabin taas waa meesheeda qofka laakiin u malayna inuu dhib ku imaana ama sida hadda gabadhan camal oo stress iyo waali aan diidana anaga stress iyo waali intuu imaano la fiyow yahay oo xal la keeni kara xal keeno dadka tolkiisa u bandhig taas waa hal oo taas gabdhahan usoo jeedinaya maxaa yeele qofka hadduu waashta ilmana ma korin karo asna isma caawin karo wax kaloo qaban kara adduun qof kale xaggiis kaba gey nafsadiisana ma caawin karo xirigaa lagu xirxiraaya silsilada lagu xirxiraaya meesha waalida lagu geyna habeen horata marka iyadad gabadha la xiraata waxay dhaheen waxaa la geynaa madaare meesha waalida la geynaa dhaheen walaa waan yaaba marka intii meesha waalida lagu geynin oo sheekada waali ay gaarin aa fiyowdahay hadda ilmo kari waysa nafsadaada aad iskartide hadda fiir markaa meesha waalida lagu geey ilmana ma karaysa adna isma karaysa ma taas marka waxaan leeyahay ilma iyo adi iyo dadba markaad karayso waa maraa fiyowda marka inta dhibka xagga gaarin hala xishoonin soo bandhig gabdhihii waaye wiilashaan usoo haray walaalayaalow gabdhaha haddaa furtaan ilmaha idinkaa dhasheene
ilmahan ma wax siisaan idinka soo ma dhin ilmihiina maalin laga turjumaya hadda waxaa laga yaabaa ninkaas inuu ku raaxaysanahay South Africa uu ku raaxaysan laga yaaba oo lacagta saas kaga daadana oo gabdho iyo waxaan loo joogin uu siinaya laga yaaba maxaa yeelay wuu faanaya wuu isku kuusaya wuu isbunbuunaya wuxuu leeyahay macnaha magac iyo wax buu raadinaya sumcad iyo magac waxba kuma taraysa ilmahaadi ayaa meeshan ku rafaadsan ninkaas had message-kan ninkaas bes kuma socdo wuxuu ku socdaa nin kastoo gabar ilmo ku dayacay oo ku socdaa maxaa yeelay wuxuu ugu socdaa waxaa waaye ilmahaasayda waajib ilaaha kaa saaray ma aha naagta haddaa qabtid inaad bil siinaysid haddaa ilmaha naagta furtid inaad bil siinayn sharci dhigaa ma sharcigaas adoo qaas kuu yahay sharcigaas diinteenna ma dhigayso diinta waxay dhigaysaa gabadha haddaa qabtid iyo haddaa furtid inta u dhexaysaba biilka cunigaas wuxuu ilaahay waajib kaa saaray waa cunigaas maaha micnaha inaad leed niman qaaroo waxaa jiraan dhahaya gabadha haddaan furo aniga biil ma siinayo maxaa naaga ani furma lacagtayda aad qaadanaysa ama lacagtayda ku raaxaysanaysa war naagtaanayta shalay iyadoo nadiif ah oo qurux badan oo dhalaalaysa ilaa adiba wax sambal ama nooc kale ah oo oon jirno oo la fiirin karno oo hawo aan lahayn adiba ma guursateen sooma wax nuuraya kusoo jiidanaya guursatay yaa saas ka dhigay hooyada aabeeda ka dhigay dhib may qaban gurigooday ku nooleed cunug yaroo la korsanay ahayd cunug yaroo hooyada aabeedu waxay u ahayd gabar yaroo maasha allah oo haastaan oo kaaliska arag dhibna kumaba qabin marka adiga gabadhan shaala saasaa ku guursatay iyadoo qurux badan isgedinaysaa ka hayso ama maantana haddii cunugaada ahayn saas le loo rabi laha ciddooda markay kusoo noqoto marka adiga waxaa samaysaa cunugaadaas ha fiirin naagta marna ha isku day inaad fiirista waxaan soo diray naagta la cunaysa cunugeyda ha dhihin ha fiirin cunugaada kuu muhiim cunuga fiiri ha fiirin naagta haddee cunayn cunugaa korinay cunug banaanka cunugaad iyada soo ma hayso waxaasiis haddee la cunaynin cunug yahay cunug ma darbi yahay mise waxaa haya mise eri yahay cunugiisoo qofka haya bini aadamaha oo qof nadaafiyo oo u nadiifiyo oo wax kas u sameeyo oo waalid labaad adaa ka maqan booskiisa labada boos iskugu darayso ayada maha xilkaas dhan ay kaa haysaa iyo tarbiyeyntii waxaas dhan usii dheer ilaahay muxuu ku tisay labada shilnaa siinaysa teedi kale lacagta adig bijirkaada laga soo goy ii sheegba lacagta intee ka keentay lacagta ilaahay soo kuma siinin oo haddana kaama qaadi karo yaa lacagtaas aad ku faanaysad ada lacag lee dhiiboysaa magudo wax kalema dhiiboysa tarbiyeyntii nadaafadii wax kastaba cunugii xanuun hadduu ku imaan wax kastoo stress qofka uu kusoo binahay adi maaha qof ahay qofkii hayooba soo hadlina weli waxba sheegin baa adi waxaad ka hadlaysaa shilimaad yaroo shaafoo wasaq ah ka hadlaysaa shilimaadkaas ilaahana kuu dhiibi ilaahana kaa qaadi kara soo ma oged marka wax weyn ha u malayna shilimaadka waa wax haddana lagu siin kara lagaa qaadi kara teedi kale waa imtixaanba waa lagu imtixaamaya lacagta lagu siiyey dadaa sadaqa ka bixini zakaa ka bixini gabaraa la sheekaysanaysaa xoogaha u tuuri qof qaraa wax isoo tur ku dhaha u tuuraysa ilmihii ada dhashina waxaa waaye waa siin laheed laakiin waxaa leedahay tii darteeda un siinaynin naagtana kuu cad adi intaa naagtan fiirinaysid cunigaadi baa iidana waa dhibtay cunigidi meeshuu ku dhintay gaajo u dhintay adna waxaa siinaysa dad kale wax siinaysa zakaa siinaysa zakada kuu waajid maxaa waaye sadaqada kuu waajid maxaa waaye qaraabada waxaa siinaysa maxaa waaye yaa qaraabo wax sii ku dheh wixii ada dhashaaba meel ku dayacani oo waxba siin la-ada shilinka siin la-ade haashma lagaari waxba lagaarimi 10 shilin siin la-ade qaraabada wax kaaga message-kan kuma socda ninkaas bas nin dhanaw ku socda oo naag dayacay oo ilmo ku dayacay oo iska dhiga oo nadiif iska dhiga taka intuu xirta dhahay hebel meeqan kuu soo dira gabara saaxiibihiin sheekaysanaa meeqan kuu soo dira halaas xag ka qaada war waxaas dhan lagaaga baahna dadka wax kaaga baahan waa kuwa ada aad dhasho meel ku silacsan oo dadka dhan ay la yaabin yihiin oo leey waxay dhal aaw hooyadooba loo jeedaay iska dhaaf ceebay kuu tahay sharaf kuuma aha kuuma fiicna ilmaha haddaa dhashay ilmaha naagta haddaa furtay ilmahaada sii waxa awooddaada tabartaada sii haddaa wax badan siin karin wax ayagoo markaas oo adi aad tabartaada kaa go-aysay laakiin haddaad maanta ninkan waxba haysan lahayn shilin jeebkiis ku jur lahayn oo maskiin uu yahay gabadhaba uu dhaamin waa u garaabi laha ama curyaan uu yahay nin xayi 20 jir oo shaqaysanay oo laga yaabo intaasoo dukaan intay u furan yihiin qof waddankiis ka tago waddan kala tagay meel iskama fadhiye shaqo meesha u tagay haddana ilmihiisii oo dadka la yaabin yihiin ilaa to the extent naagta isgubaysa ay gaartay stress isla hadal waxaas ceebay idin tahay wiilasha Soomaaliyada waxaas sharaf idin ma ceebay idin tahay intaasna waa og waxa kale fiirinaysay waxaa leedihiin ama ayada la cuntaa ayada day la cunayn jinni ma la cunaa ya ayada da quraynin oo leedihiin iyada la cunayn aybal ya ka qaata ilmaha hooyadin u geesta oo ku korsada xag ilmaha un sidii ku badbaadi lahaa hala sameeyo badarkii gabadha isla hadal leed idinkan aad leedihiin haddaan wax siin iyadaada cunaysa aad leedihiin hay waayahay ilmaha meel wanaagsan oo ku koraayaan geesta oo hooyaalkiin iyo walaalyaalkiin ama shaqaalo u qorta geesta si iyadana maskaxdeeda ku badbaada laakiin idaa la cunaysa intaa leedihiin
iidana ay ku dhimatay meesha ku rafaada waalidiinteedii walaalaheedna ay leeyihiin ilmadeedu anaga tabar uma hayn wixii dhala 20 jir u geedha leey taas dhibaato sooma ilaahay kaliya dee ahaan leed way ku noqon leed reerkooda hadda kuma noqon karto reerkooda waxay u noqon karin ilmaha maxaa ninka dhalaa 20 jir intaas dukaan u furan yihiin ama shaqaysanaya maxaa korka naga saara ama reerkoodaaba joogaan maxaa naga kor laga saara lagu leeyahay marka hadda waa dayacaysa markay 20 jir iyo 30 jir gaadaan way soo xaadirin sooma marka cadaabta adduunka ku imaatay nin ilaahay bugu dhawaayaa le baabkiisa lama gal marka dadka waxaa lagu bugu dhawaaya adduunka markii laga tagay aakhira lagu bugu dhawaaya adduunka aakhira lagu bugu dhawaaya adduunka ilaahay kugu bugu dhawaaya cid kaa celinaysana waa kugu fiirsanaynaa hadday siiyeen soomaa dhaqan xumadan aawadaan joojiye ilmihiina beeshta ilmihiina wax siista gabdhaha hawaalina masaakiimaha maskaxdooda waa iska yarta hawaalina depression iyo stress ku ridin walaalayaal intaasaan leeyahay wiilasha videogan way ugu dheeraade karaal noqda walaalihii qeyr iyo waxaa idin dhaafay qeyraa idin dhaafay waan idin jecla dhammaantiin waxaa waaye barnaamijkan barnaamij lamid ah intaan ku kulmi doono waa sacdiyo idin leh salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnaamijkan ii sheegaree walaalihii qaaliga ku shaaragareeya meelaha bulshada ku badanta salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu